السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحران دير نيوز walaal ku xiran barteena bulshada ee Dheer News ayaa waxa uu inoo weydiiyay su'aashaas oo ah waxaan idin weydiinayaa qof labeebsha ah oo labeebnimada ku dhashay haddaan u galmoodo si aan biyaha isaga bixiyo ma dambiba maxaana iga soo gaari kara teeda kale qolyaha gaalada ah waxaan arkaa iyagoo u ololeynaya dadka qaniisiinta kuwaas oo ay ku leeyihiin in ay xuquuq u leeyihiin sida naagta oo kale loona galmoon karo mid kalena horta dadka noocaas ah ee aan ragga iyo dumarka midna lagu sheegi karin ee bini aadamka nala ah xukunkoodu shareecada islaamka maxay ka dhaxday mahadsanidii jawaabta aan walaalka ka siinayno waxay noqon doontaa sida tan sinada marna ma banaana nin ama naag ama labeeb qof kasta oo lala sameeyo waa xaaraan marka labeebka waa midka leh qalabka ninka iyo qalabka naagta labadaba midka uu toos u yahay lama oga waxaa jira labeeb oo aan la fahmi karin afka carabiga waxaa la dhahaa khanthi manthilak xagga dhaxal iyo ahkaam badan mushkilado ayuu u keenayaa marka haddii la helo dhakhtar xadidi karo noocan oo uu u badan yahay markaas waxaa laga soo qaadi karaa nin ama naag meesha uu u badan yahay markaas wuxuu ka mid noqonayaa dadka caadiga ah ahkaamta shareecada islaamka ayaa markaas lagu socodsiinayaa marka la xadido meesha uu u badan yahay tusaale ahaan haddii laga soo qaado inuu nin yahay dadka imaam ayuu u noqon karaa wixii nimanka diinta ay ku garayeeshay uu samayn karaa sidoo kale haddii laga soo qaado inuu naag yahay ahkaamta naagta ayaa la siinayaa laakiin taas waxaa ka horeysa marka hore waa in la xadido nooca uu yahay waxaana xadidaya dhaqaatiir lagu kalsoon yahay mahadsanidin jawaabta aan walaalka siinay waxaan u maleynayaa in uu ku qanci doono insha Allah waan idinkaga mahadcelinayaa kumanaan jeer iyo malaayiin jeerba la socodka channelkeena iyo ku xirnaanta channelkeena mahadsanidin